anigu ummadan meesha ku dhamaatay waxaa dib u soo laabatay noloshii ka jirtay isgoyska kilomitir 4 iyo sidoo kale wadada aada airportka caalamiga ah ee magaalada Muqdisho saacado ka hor halkan aan taaganahay suurtagal ma ahayn in saxaafaddu inta ay istaagto ay warar ay ka soo tabiso balse haatan waxaa dib u furmay socodka dadka iyo gaadiidka isaga kala goosha isgoyska kilomitir 4 iyo sidoo kale dadka ayaa loo ogolaaday inay isticmaalaan wadada airportka caalamiga ah ee magaalada Muqdisho kadib weerarkii hotel Xayaat oo qaatay saacado aad u fara badan weerarkaas oo la rumaysan yahay in ay ku geeriyoodeen dad aad u fara badan isla markaana ay ku dhaawacmeen tiro ka badan kontameeyo ayaa waxaa la soo afjaray xalay saq dhexe ciidamada ammaanka dawladda ayaa dib u furay socodka gaadiidka iyo dadweynaha isgoyska kilomitir 4 iyo sidoo kale wadada aada airportka aadan cadde ee magaalada Muqdisho qaar ka mid ah dadkii ku sugnaa halkan ayaa ka wareysanay xaaladda isgoyska kilomitir 4 wadada iyo sidoo kale waxyaabaha ka jira xilligan la taagan yahay anigu afar saac ka hor wadadan wada fiican ay ahayd oo wanaagsan oo camiran oo nabad iyo nolol ay ka muuqato haddana u jeedisay rafaadka iyo nafi maal oo lagu waayay dadku ku laadeen meel alle dadka iskaga baabeen waa maqadir ilaahay wax walbana qadar min ilaahay wax ka soo dhacayna waa dhacayeen qofka yani noloshiisa ilaahay laakiin sababta ay sidii oo loo sababsadaniyo si xun marka ilaahay una xariis inta ku dhimatay dadka waa aad ba maartay loo leeyahay xamar dhan waa la wada dhigaysanaa waxaan yani dhibka meesha ka socday afar saac oo ka socday hadda xalay ma la soo jilay 6 saac la soo afjilay dhahay waxaan day maamulka diyaarka labada adduunka inuu ka dhaco malaysa burbur xoog la ka muuqdo dadkii hantidan lahayn kulli cid wax ku cimilata ma laha naftooduna ku way maalkooduna ku way ilaahay yaa u naxariistay waxay dhintay laakiin dadkan markasta waa jamac u dhimanay Soomaalidana dad waxa oo qabaa'il waa mana heshin marka waxaan ka afsanahay dadka qaar inay yaraadaan ba oo la gaabka hadda la sheegay run oo noqdo dhibaato wallahi ilaahay u naxariistay anigu ummadan meesha ku dhamaatay aad u faraxsanahay dadweynaha Soomaaliya ee maadaama dadka number 4 ku furmeen aad u faraxsanahay marka waran sida ay u soo laabatay socodka dadka gaadiidka iyo ganacsiga walaahi ganacsiga horta waa ujeedaa khasaara ka dhacay burbura ka dhacay dad ku dhintay dad ku dhaawac waxaa burburay goobo ganacsi oo ku yiilay agagaarka hotelka Xayaat wadada ku teesan wadada airportka qaar ka mid ah goobaha ganacsi wali ay xiran yihiin halka ganacsatada kale haatan ay ku leeyihiin dib u dayactirka goobahoodii burburay qaarkood ayaa isku dayaya in ay si tartiib ah u furaan ganacsigooda qaalaha shirkadaha korontada ayaa ku sugan wadadan kuwaasi oo ku hawlan dib u dayactirka fiilooyinkii ku go'ay dagaalkii xooganaa ee ka dhacay gudaha hotelka Xayaat sidaad arkayseenba fiilooyinkii korontada iyo kuwii kale ee isgaarsiinta sida internetka iyo sidoo kale isgaarsiinta kale ayaa gabi ahaanba go'ay iyadoo haatan shirkadaha isgaarsiinta iyo sidoo kale shirkadaha kale ee koronto ay ku leeyihiin sidii dib u habeen ay ugu sameyn lahaayeen fiilooyinka isla markaana dib loogu soo celin lahaa korontadii iyo isgaarsiintii ka jirtay halkan Zakariya Axmed Muuse TV Shabeelle